مناسبة شرفت له مناسبة شروينها أفراد شباب ودني حريت وقادينيا وحان سلان ويهل كانوا قصوا شيدينيا شعبي الصومالي وقادينيا مقالة قدي إيو مرتي شرفتا meelaha fogfog nooga yimid si ay shirka noogu soo sharfaan iyo dhammaan xubnaha jabhadda ee kala duwan ee iyaguna ka soo qayb gala shirkan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad baan idinku mahadcelinayaa sida fiican ee sharafta leh ee uga soo qayb gashay shirkan sidii cabdullaahi axmed qani baa uu hadda ka shanqariyey aad iyo aad waxaan idinku codsanaynaa inaad noo dulqaadataan haddii runtii ama quwad tiro aanaan ku talagelin oo marti sharaf iyo xubno kale oo fara badan ay shirka yimaadeen oo kuraastii iyo ay nagu yaraadeen aad iyo aad baan idinka raalligelinaynaa waxaan idinku codsanaynaa inaad raalli naga ahaataan maxaa yeelay eegada waa shirkii lagu horreeyey oo si nabadgelya dalka iyaga gudihiisa ku qabano saddex shirweynaa ka horreeyey inkasta oo darfaha dalka lagu qabanayay haddana qaarkood geedo hoostood baan ku qabanaynay qaarkoodna si qarsoodi aan u qabanaynay shirweyne jabhadeed oo dalka gudihiisa si nabadgelya loogu qabto waa markii ugu horreysay saas daraaddeed baa sidaa daraaddeed bayay dad fara badan oo sharaf leh oo gudaha iyo dibaddaba ka yimid uga soo qayb galeen aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin yacni sharafta iyo qiimaynta iyo qadarinta aad noo muujinaysaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin ka qaybgalayaasha ka ku dhuftay waa shirweynihii afraad muddo dheer buu halgankani soo socday shirweynaha inta badan waxaa la qabtaa markii 4 sano ama 5 sano la joogaba mar baa la qabtaa marka ujeedadiisuna inta badan waxaa weeye sidii siyaasadda dalka loo dejin lahaa ee loo jihani lahaa yaa shirweynaha loo qabtaa inta badan sida aad la socotaan hadda siyaasaddii jabhadda wax badan baa iska bedelay oo awal hore hadday jabhadda siyaasadeedu ahayd سياسة halgan oo dagaal in mataqaana lagu xalliyay qalin iyo wada hadal inay wixii hadda dhiman ka bacdi lagu hadliyo saas daraaddeed baa nabadgeliyo dalka sidaas daraaddeed baa nabadgeliyo iyo dalka gudihiisa halka shirka loogu qabtay waxaa runtii an aad iyo aad aan raalli wanahay ummadda yaba aad iyo aad baan raalli wanahay waxaananu aad iyo aad u qorshaynayn u jecelahay in siyaasadda yadu ay ummadda yada iyo maslaxadeeda mar walba saldhig u noqoto siyaasadda jabhaddu inay saldhig u noqoto siyaasadda dalka iyo ummaddan inay saldhig u noqoto aanu rajaynaynaa waxaananu rajaynaynaa mar walba inay middaasi ay noqoto midda maslaxadda ummadda iyo horumarka ummadda ka shaqaynaysa siyaasaddaasi inay noqotaanu rajaynaynaa ama sidii weligeedba ay loo degsanay siyaasadda jabhadda